asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta waxaa idiin wadaa filin hindi ah kaasoo lagu magacaabo Shukulaanda Daafi. intaana filinka u gudagelin waxaa idinka codsanaynaa subscribe, like-tuna waa noo dhiirigelin. mahadsanid walaal. filimkeenu maanta waxa uu ku bilaabanayaa gabar 5 jir ah 1934 ku nool Bangalore, taasoo ku ag ciyaaraysa walaalkeed, isla mar ahaanta asagoo ka shaqaynaya xisaab, balse gabadhu waxa ay ka shaqaynaysaa xisaabta iyadoo ciyaaraysa. waa gabar yar oo cajiiba taasoo lagu magacaabo Shukulaanda Daafi, oo taasoo leh hiddo cajiiba. waxa uu imaanayaa aabaheed wuxuuna u sheegayaa in gabadhu ay ka shaqayso xisaab iyadoo ciyaaraysa, taas uu aabaheed ogaanayo in ay gabadhu leedahay hiddo. waxa uu geynayaa iskuul si ay uga shaqayso xisaabaadka una soo bandhigto xirfadeeda, isla mar ahaantaana waxa uu ka helayaa lacag. waxa uu bilaabayaa meeshii uu waxbarasho ka geyn lahaa in uu u ballamiyo iskuulla, taasoo ay ku soo bandhigayso xirfadeeda. waxa uu qabanayaa ballamo. habeenkii dambe waxay xaafadda ku soo laabanaysaa walaasheed oo dhima. dadku ay joogaan waxay u imaanaysaa hooyadeed, waana ay ku qaylinaysaa. waxa ayna weydiinaysaa sababta walaasheed loo geyn waayey isbitaal. waa ay ku xanaaqaysaa, waa ayna nacaysaa hooyadeed. isla mar ahaantaas Bangalore 1954 sano ka bacdi waxa ay bilaabaysaa in ay ku shaqaysato xirfadeedii yaraanta. waxa ay qabanaysaa bandhigeedii, waxa ay soo bandhigaysaa xisaabo, isla mar ahaantaana dadku ay ka helayaan. markii uu ahaa 1955 waxa ay imaanaysaa London si ay nolol cusub uga bilaabato. waxa ay baadigoobaysaa shaqooyin ilaa ay markii dambe ka hesho shaqo xisaabaad ah taasoo lagu magacaabo Roya. waxay u ahayd fursad weyn. waxa ay ka qaybgalaysaa xalinta xisaabaadka, waxayna si fudud ku xalinaysaa xisaabo. markii ay ka soo baxdo waxaa ka daba imaanaya Javier oo ah nin Isbaanisha kaasoo u sheegaya meesha ay xisaabtan ka soo baratay iyo jaamacadan ay sida khiyaanada leh ay wax uga xalinayso. waxay u sheegaysaa in aysan weligeedba waxbarasho gelin, ay waxaani tahay hiddo ay leedahay. waxa uu ka codsanayaa inay kafee wada cabaan, isla mar ahaanta waxay isku afgaranayaan inuu u qaban doono showow kaas ay ku soo bandhigaysa hiddaheeda. waxa uuna u sheegayaa inay xirato dharka reer galbeedka oo gacgaaban, balse waa ay diidaysaa. isla marka dambe waxay isku afgaranayaan in ay dharkeeda ku soo bandhigto. waxa uu keenayaa gurigiisa, isla mar ahaantana wuxuu u ballaminayaa tiim kuwaasoo leh kombiyuutar ay la tartamayso kombiyuutarka. warqad baa waxa uga imaanaysa hooyadeed taasoo ka codsanaysa in ay lacag u soo dirto ayada oo aan weydiin xaaladeeda iyo waxa ay ku sugan tahay. wayna ka caroonaysaa. waxa ay tegaysaa boostada waxayna u diraysaa warqad taasoo ay ku leedahay mar dambe ha ii soo dirinina wax fariin ah, bil walbana anaa idiin soo diraya lacagtiina. waxa ay ka qaybgalaysaa showgii xisaabta kaasoo kule ay tartamaysa kombiyuutarka, isla mar ahaantaasna waaba qof cajiiba oo kombiyuutarka ayada ka hor shaqaynaysa ilaa xisaab ay ka shaqaysa yiri kombiyuutarku ansar kala soo saaray ama jawaab kale, taasoo ay u sheegtay in uu khaldan yahay kombiyuutarku. isla mar ahaanta ninka meesha iskale waa uu ku xanaaqay, waana uu iska soo cayriyay. waxa uuna u sheegay in ay ayadu khaldan tahay. maalmo kadib waxaa la ogay jaraa'idyadu soo bandhigeen in ay saxsanayd Shukulaanda Daafi halka uu khaldanaa kombiyuutarku. waxa ayna lagu soo daabacay jaraa'idyada halkaas oo ay ka dhaxashay magac weyn iyo hanaqaadka nolosheeda meesha ugu weynaa. Javier ayaa u sheegay in loogu yeerayo gabadhii ka guulaysatay kombiyuutarka, isla mar ahaantana waxay qabatay showow badan kaasoo ay ku heshay magac. waxa ayna ka qayb gashay xaflado badan, halka uu Javier u sheegay in uu ka tagayo uuna dib ugu laabanayo Isbaanishka. waa ay murugootay. 1968 Bombay mar ay joogtay xaflad waxa ay isbarteen wiil lagu magacaabo Baritoshid kaas oo ay ku caajiseen xafladda, isla mar ahaantana isku raaceen qofka ciyaar. inkastoo ay zaa'id iskugu soo dhowaadeen marar badanna ay shukaansi wada aadeen, waxaa dhacday in ay gaaraan heer ay isguursadaan. Calcutta 1970 waxaa ugu dhalatay gabar taasoo lagu magacaabo Anubama. run ahaantii waxaa isbedeshay nolosheedii oo waxa ay noqotay guri joogto. waxa ay dib u milicsatay buug ka mida buugaaggeedii xusuusta. isla markiiba waxa ay go'aansatay in ay dib ugu laabato London ay sii wadato nolosheedii caanimada ahayd. waxa ay tagtay London, waxa ay ku laabatay tiyaatarradii. waxa ay dhigtay iskooro cusub kuwaasay ayadu horay u lahayd. iskooradii ay horay u lahayd inay jebisa ayay bilowday. waxa ayna dhigtay iskooro cusub. waqtiyadii ay ku soo qaban jirtay waqtiyo
ka yar ayay kusoo qabanaysa iyada oo ku faraxsan arrintaa. maalinkii dambe waxaa soo wacay ninkeedii oo u sheegay in ay cunugtoodii hadashay. iyadoo aada ugu faraxsan waxa uu sheegay in ay cunugtooda wixii u horeysay ay tiri ay ahayd magaca aabe, meeshii laga sugayay hooyo in ay tiraahdo ama maam. isla markiiba waa ay soo duushay oo waxa ay timid Kalkata iyada oo ka xumaatay arrintaas. waxa ayna u sheegtay ninkeeda in ay u guuraan London si ay ugu wada noolaadaan, balse ninku waa uu iska diiday arrinkaas. 1978 waxa ay tageen London. isla markiiba gabadhu waxay aabaheed u soo qori jirtay warqad maadaama ay hooyadeed ahayd mid mashquul badan oo ku mashquulsan shaqooyinkeeda, halka aysan gabadhu wax iskuula aysan u xaadiri jirin maadaama ay hooyadu aaminsanayd in hidaraaca ilmaha ay lumiso ama uu lumiyo iskuulku. waxa ay guriga ku haysatay macalimiin, halka gabadhu maalin walba ay warqad qorto ayna u diri jirtay aabaheed ayna ugu dhiibi jirtay hooyadeed. laakiin hooyadu uma aysan diri jirin aabaha warqadda sababtoo ah ma aysan doonayn in ay xiriir yeeshaan gabadha iyo aabaheed. maalin maalmaha ka mid ah hooyada oo soo bandhigaysa buuggeeda cusub, buuggaas oo ahaa mid ay qortay iyadu, waxaa la weydiiyey sababta ay ku kala tageen ninkeedii hore, balse waxa ay sheegtay in uu ahaa ninkeedii hore dadka jinsiyada ah. gabadheeda oo arrintaa aada uga xumaatay aanan waxna ka dhihi karin ayaa waxay iskaga soo baxday hoolkii bandhiga buugga. hooyadu markii ay aragtay waa ay kasoo dababaxday, waxa ayna u sheegtay waxa ayna weydiisay gabadhu waxa ay hooyadu saa u samaysay, balse hooyadu waa ay dejisay waxayna ugu jawaabtay haddii aan been la sheegin buunbuunin yeelan mayo buuggu, mana uu iibsamayo si fudud. arrintaas isjiijid badan kabacdi hooyadu waxay ku dejisay inuu ahaa aabaheed nin fiican, balse buugga dartii ay u samaysay. inkastayse hooyadu gabadheeda waqti u helin waa ayna ku xanaaqday, waxa ayna u sheegtay hooyadeed in ay necab tahay. muddo kadib waxaa kulmaya gabadha aabaheed ama ninkii hore ee Shukulaanda Daafi, kaasoo ay ku kulmayaan meel biibata ayna wada sheekaysanayaan, islamarkaana uu ka codsanayo in gabadhooda ay geyso meel waxbarasho ama iskuul ah. isla markii isjiijid badan kabacdi waa ay ogolaatay hooyadu in ay gabadheeda u ogolaato waxbarashada iskuulka. maamadu waxay u sheegtay in ay shaqadeeda ka fasax qaadatay muddo dhowr bilood ah, taas oo ay doonayso in ay waqti kula qaadato gabadheeda, halka gabadhu ay ku faraxday arrintaas. hooyadeed marka ay u sheegtay ayna ku wada noolaayeen guri, halkaas oo ay waqti ku qaadan jireen gabadha iyo hooyadeed. waxa ay ahayd waqti farxad leh. maalinkii dambe guri iib ah bay aragtay gabadhu, gurigaas oo ah mid duq ah. gabadhuna waxa ay ka codsatay in hooyadu ay gurigan ay iibsato ayna dayactirto kaas oo ay kiriso. hooyadu waa ay la dhacday fikirka gabadheeda maadaama uu ahaa fikir wanaagsan. 1997 Bangalore Anubama waxa ay la kulantay Ajay aragtidii koowaad. Anubanda iyo Ajay waa ay iska heleen, waxa ayna go'aansadeen in ay nolosha wadaagaan. arrinta waxay la wadaageen waalidkuna arrinta waa uu soo dhaweeyay maadaama ay ku faraxsanaayeen in ilmahooda ay guursadaan. isla mar ahaanta waalidku waxa uu qabanqaabinayay arooskooda. intaa kadib Shukulaanda Daafi waxa ay dukaamaysi u raacday wiilka gabadheeda guursanaya Ajay, waxa ayna u sheegtay marka ay isguursadaan kabacdi in ay ku noolaan doonaan magaalada London, laakiin arrintaas waa uu diiday. waxa uuna u sheegay in uu ku noolaanayo magaalada Bangalore. iyaduna waxa ay baajisay arooskoodii. waxa ay ku soo laabatay guriga, waxa ayna u sheegtay hooyadu gabadheeda in ay baajisay arooskoodii, balse gabadhu waa ay ka xanaaqday waana ay kala tuurtay hooyadeed maadaama ay jeclayd Ajay. waxa uu weydiistay gabadha aabaheed waana la siiyey, isla markaana waa uu guursaday. intaa kadib waxaana la tusayaa 1999 Bangalore, gabadha oo la kulmaysa aabaheed. Shukulaanda waxa ay la kulantay gabadheedii, waxa ayna u sheegtay in ay lumisay awoodeedii. Shukulaanda waxa ay rabtay in gabadheedu ay iska furto ninkeeda Ajay oo ay u laabato gurigeedii una raacdo magaalada London, laakiin gabadhu waa ay ka diiday arrintaas oo
waa ayna ku xanaaqday islamarkaana waxa ay iskaga soo tagtay meeshii. Dhanka kale waxaana la tusayaa Anubama iyo Ajay oo wada jooga u tagay dhakhtarka, taas oo u sheegtay in ay uur leedahay. waa ay ka xumaatay markii hore, balse markii dambe waxa ay ku farxeen qadarta waa ayna ku qanacday. Dhanka kale waxaana la tusayaa Bombay 2001 Shakulaanda oo joogta bandhigkaas oo ay ku qabanaysay oo lagu weydiinayay su'aalo. Shakulaanda waxaa la weydiinayaa su'aalo, inkastoo ay su'aalaha si khaldan uga jawaabayso, balse waxaa haystay family problem kaas oo ahaa gabadheeda. waxay iskaga soo tegaysaa bandhiga waxayna imaanaysaa Bangalore gurigii ay ku noolayd yaraanteedii oo xusuuso badan yaaleen. waxa ay furaysaa sanduuqaas oo ay ka helayso waxyaalo badan, kadibna waa ay oynaysaa. waxaa aragnaa Anubama oo joogta xaflad ayada oo saaxiibteed ay weydiinayso gabadheeda, waxa ayna u sheegaysaa in gabadheeda la dhaho Ani. waxa ayna dareemaysaa in ay khalad ku jirto maadaama ay xaflad joogto, gabadheedana aysan waqti la qaadanin. waxay ku qancinaysaa ninkeeda in ay gabadheeda waqti la qaataan, xafladana ka tagaan, islamarkaana waxay iskaga tegayaan xafladda. dhanka kale Ajay waxa uu u sheegayaa Anubama in hooyadeed iibinaysa gurigaas oo ay ku qoran tahay Anubama, kaas oo laga rabo canshuur lacag tiro badan ah, aysan awoodin in ay bixiso inta cimrigeeda ka dhiman. waxa uuna u sheegay in ay u furan tahay 2 option, labadaas oo ah in ay iska daayaan iyo in ay hooyadeed dacwo ku furaan. waxa ay go'aansanaysaa Anubama in ay hooyadeed dacwo ku furto, taas oo keeni karta in la xiro. markii maxkamadda la iskugu yimid, Shakulaanda waxa ay ogaatay in nacaybkii hooyadeed ay u qabi jirtay weligeed oo ahaa mid maalayacniya, isla nacaybkaas nacayb la midana maanta ay u qabto gabadheeda. intaa kadib Shakulaanda waxa ay raaligelinaysaa gabadheeda, waana ay isku soo dhawaanayaan iyadiyo gabadheedu. intaa kadib waxaa arkaynaa Shakulaanda oo joogta xaflad, taas oo la siinayo abaalmarintaas oo ah inay xisaabta heerka gaadhay. waxa ayna khudbada ka jeedinaysaa in ay gabadheedu wadada saxsan ay tustay. fadlan haddii aad nala soo gaadhay dhammaadka, waxaa ka codsanaynaa inaad subscribe noo saartid. mahadsanid walaal.